والله أو بالله أو تالله أنا هويا شم بقول يسيدات تمويل هدر إديان تيجي شيء الله يقرده هذا إنسان يطبن جارته أو إسبدل وايو ما تحتوي هذا أنجله هذا أنجل المسلم ماهي حرام علينا هيا wax badan aan riwaayad isugu nimid wiilkii maxamed gorgaataan ku mooqifayad intii nin hadashay warkiisii aan taageersanayaan maalin kasta inaan isu nimaad ee haddana runta laga hadli waayo ee guddi inta la qabto lala shaqeeyo waayo ra'iisul wasaaraha oo dhinacba mar loo gurguurto ma ku qaada karno magacaas raalina kama nihin والله أنا سو استاجن ما أنا صومن مانتا إن أنا هوية أمانة أنا سو استاجن وأنا أقسنها because رمضان مبارك خياري أرتمركو جهريسو channelك share like comment and subscribe أنت بكو قبت مركو جهريسو أنت أسكدب وحايدين كعد سنة يا وحامي شهد أن فلقين دونا ما انتيتو إن بيلها هوية شر اسكوي ماذين شركة سوءها شركة صابسن إن كهاد لايان معارض يكويهين دولة فدرالك even though سيدا وهاد لايان أي حيث حاجة معاهين روح سياسة ديسان معاهين غفك مركا معارض يسد وإنا وحي آد سياسة ديسان معاهن هذا القيحان وسيدي إنا ما عرفت ماشي لسه شرتك تيد معهن مركا كل يوم ما بهذا ليسي أو كهذا ليس أو ليس وعايستا سما والله قلبته سما والله أضاقي هوية أضاقي سين ماشي اللي قصوتي إذا قلبت الديدة والله برتا لقوتوغا ما يقبلن قادة يدين gacanta taag odayaasha waa aamusantiin wax ka jira malaadaan Soomaaliya ruushka gayni saas dhaha inaan farmaajo meesha ka jiidayno oo uusan ku jirayn meesha runta ka sheega ilaahay ka baqa odagii yaabay waxa uu yiri nin gablamay nin good cunay ninkay gool la ciyaaray nin libax ku gowriirsado wadanihi gooyay inuu go'ayo sawlama ogon galowdu raagayni waxa ninku meesha u fadhiyo oo umada u kala qaybsaa oo magacyada u kala bedela oo waxa la wixii shalay loo sameeyo oo meel cidla uga dhigay waa aad taqaani waxa uu uga jeedo maxaa u jiiftii sidii waxa oo maxay ahayd way sabab leesh afarta xabo ku jirta horta quraan ha akhrido cidana la quraan saaro runta idin sheega farmaajo waxaan cod dheer ku leeyahay hadda ka horna waa sheeg wiilkaas aan kuida wallahi oo billahi oo tallahi ana hooya sham boqol iyo sideetan wiil hadeer idiyaan tiibi shay Allah igu rido haday 15 gaarto oo isbedeli waayo madaxtooyadan gala hadaan galin muslim maahin sham boqol wiil bilada waxa ku galaya ord inta ka madaxweynaha meesha jiifo oo qolka iska jiifo bilada ord ha uga soo saarayna way dhehaysaa marka arintaas koleeyba waxa keenay waxay tahay madaxweynihii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagana iska aamusan oo shib u galay oo u jawaabeen ayay waxay isiraadeen ninkan xawla aamusan yahay talo wuxuu markasta ma aragtay shibto guraaya wuxuu soo wadayaa og marka seeftu wado wadkii cabsi u galiyay marka baleeyahay hawiye marka madaxweynaha wax naftigiisa laga codsanayaa inuu naftigiisa oo at least hadlo qofka markuu hadlo dadkii ma aragtay waxa way ma aragtay fasiranayo wax isleey madaxweynaha ba hadlayo maanta intayo waxa uu sheegayo marka xogaa dadkii shaki ba galay moogta madaxweynaha maadaama qolkiina uu iska fadhiyo muddo 2 sano ah ee ku sii socda wax doorasho ay sadhicin meeshii guri uu leeyahay kale ay iska noqotay way yaabihin marka ninkan waxa guriga iskaga jira ninkan isku xiray mana hadlaayo xooye wuxuu sheegay malaha ma qudbeynayo wuxuu qorsho wada lama yaqaan marka xogaa jahwareer baa ku dhacay iyagana beelaha hawiye marka waxa soo dhan intee sadhicin madaxweynaha waa u jeedaa in meeshii ay isla waalan tahay 5 sano meeshii uu fadhiyay waliba sanadkii 6 oo sii socdo marka February bay ugu ekeed 5 sano adana waxa la marooyaa April 2 bilood oo sii fushay 5 sano marka madaxweynaha waa in waxa laga codsanayaa inuu asagoo isgarto oo tanaasul sameeyo dadkan waxa ka qaylisiyay dabka maxaa karkarinayo
waa dee waa aamusnaanta ayaa karkarinayso. marka dee madaxweynaha waxaa looga baahan yahay tanaasul, ama waa inuu la yimaadaa xoog iyo power sida maaragtay madaxweynaha raashka oo kale ama maxamed siyaad barre oo kale. laakiin qolba isku soo xirayaa aamusnaan baa ku maamulaya waddan dhan, wax macquula ma noqonayso. marka ama xoog la imow, ama xeel la imow, ama dimuqraasi lagugu doorto, ama soo jabhadee. labada saddexdaas mid bay noqonaysaa. sida hadda dadkan ay ku leeyihiin villa Soomaaliya xoog baan uga soo saarayna. adigana nin wadanayaa tahay oo la taageersan yahay oo ciidamad fara badan haysto jaalal madaxweyne. marka waxaa lagaaga baahan adiga naftigaaga inaad soo jabhadaysid oo meeshaan oo 4.5 aad ku joogtid, aad ka gudubtid oo xooggaaga isticmaashid, muruqaaga isticmaashid. marka dadka meel lagu raacay markaas noqonaysaa. laakiin had jeertaan 4.5 adoo meesha ku fadhiyo qol isku soo xiray hadlaynin, villadii aan kasoo baxayn. dee villadii dee adigu ma lihid guri aan leedahay maahan, meesha maqaayad aan leedahay maaha, waa maqaayad ummadda Soomaaliyeed ishi ay ku hayso. marka dadka ha nagu kicinin. oo ujeedaa dadkii way kicin beelaha hawiye maalin walba waxaan wax ugu dambeysay shirarka noocan oo kale ah. waagii ay didba ugu dambeysay shirar noocan oo kale la qabsado, waxaas ma hore dhamaadeen. marka hadda waxaa soo laabtay abduubkii sidoo kale waa ka faa'iideysanayaan. marka jaalal madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan u baahnaa inaad tanaasul samaysid adigu, maadaama aa meesha 5 sano fadhisay. nimanka abduubkaana maaragtay oo hareeraha kaa taagana iyagu naftigooda waxaa weye jaaniskan oo kale way ka faa'iideystaan. marka waxbaa soo ururayo dadkii waxay leeyihiin ninkan wadankii wuxuu rabaa inuu ku wareejiyo nimankii afka duubnaa sidii Afghanistan oo kale. marka dee adiga laguguma og arrimahaas oo kale haddii maaragtay ay dhacdo. waxaa u malaynayaa dhaxal wadankii oo lagu dhibay oo riddi maaragtay ilaa iyo ay madax xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif u lugeyn jiray ilaa ay afgooy lagu tegi jireen. haddana aan meel lisi aada lagu tegi jirin diyaaradu la raacayo. wax macquula maahan jaalal madaxweyne. marka waxaa laga codsanayaa in arrintan aad ka qabatid, tanaasul samaysid. 5 sano meesha fadhisaa macquul ma ahan. waa ujeedaa dadkii maamooyinka inay kaceen 500 oo wiil ayaa villada kaga soo duldhacaynaa ay leeyihiin. marka waa inaad tanaasul gaartaa. waxa meeshaan dadkan karkariyey maxay tahay, maxaa karkarka ka keenay? arrintan maaragtay wax ka qabasho ayay u baahan tahay maxamed cabdullaahi farmaajo. marka waa maamudan waxa karkariyey wax sahlan maahan. waxaa weeye waa koley waa wax laga gaari karo. dadkii qancis bay u baahan yihiin. adigana ma hadlayso, qolbaa isku soo xirtay maxamed cabdullaahi farmaajo. marka arrintan lama yaqaano siday maaragtay xal u yeelanayso. nimankii afduubkan halkaas ayagana maaragtay kasoo hanjabayaan. xalana la qabsadaa la sheegayay. nimankii afduubkan qabsaday aljazeera meelihii fogfogaa wadankii ay already Soomaali askartan tirada badan oo sheegaysid waan bilaa oo gaardinayay. maxay marka howlaha ay qabtaan maxay tahay marka haddii aljazeera ay nimankii afduubka qabsadeen? marka arrimahan badan oo xasaasiga soo baxay waxaas oo dhan waxaa laga faa'iideysanayaa qabiiladan iyo waxaan socdo. marka waxaa idinka codsanayaa maxamed cabdullaahi farmaajo inaad meeshaan tanaasul samaysid. dadkan qeylinayana qeyladooda inaad dhegeysataa. dhammaantiin waa arrintaas ayay maaragtay macaawid ka hadlayna. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falaqeynteena. rabadaan mubaarak. share ku qabta, comment ku qabta, like na saara. dhammaantiin waa salaamantiin. rabadaan mubaarak.